saarka beeraha waa barwaaqeen dal walba oo dunida saaran wuxuu leeyahay ilo dhaqaale oo uu ku tiirsan yahay, ha ahaato warshado, beero iyo xoolo nool. wax soo saarka beeraha iyo xoolaha nool ayaa lafdhabar u ah dhaqaalaha dalkeena Soomaaliya, waxayna ka geystaan in ka badan 90% wax dhoofinta guud ee dalkeena. 60% waxay ka qayb qaataan GDP-ga iyo dakhliga nolosha in ka badan 80% dadkeeda. jawiga iyo cimilada isbedela awgeed ayaa beeraha iyo xooluhu waxay la kulmaan caqabado muuqda oo hoos u dhiga dheefsigooda iyo ka faa'iideysigooda iyo sidoo kale dakhliga guud ee dadka Soomaaliyeed. berisamaadkii ayaa waxaa la sheegaa in Soomaalidu ay ka mid ahaayeen wadamada sida fiican uga faa'iideysta beerahooda iyo wax soo saarka, iyadoo garab istaag iyo taageerid iyo tusaaleyn intaba ka helayay maamuladii iyo dowladihii xilligaas. sidoo kalena loo tababari jirtay beeralayda iyo dadka culumta beeraha bartay inay si fiican uga faa'iideystaan, sidoo kalena loo diyaari jiray agabka ay wax ku shaqaysanayaan. ka faa'iideysigooda ayaa waxaa loo sababeeyay in dadku ay lahaayeen xirfadii iyo aqoontii ay u baahnaayeen beero dhaqashadu. sidoo kale dhaqaalaha dalka ayaa wuxuu kobcaa markii dadku ay leeyihiin xirfadda iyo aqoonta waxa loo yaqaano human capital ama al-kifaa'ul bashariya wax la yiraahdo. sanadihii isweydaartay dabadood ayaa dadku ilaa hadda waxaysan u diyaarsanayn inay si quman oo fiican uga faa'iideystaan beeraha iyo barwaaqada Ilaahay uu siiyay, ha ahaato xoolo ama ha ahaato dhul beereed. Soomaaliya waa wadan ku fiican beerashada iyo tacbashada, sidoo kalena xooluhu waa kuwa iska balli meel walba buuxa. barwaaqada taal Soomaaliya ayaa ah mid haddii si walba loo xisaabi maago aan la sheegi karin, waxaana lagu sheegaa in ka badan dhulka u diyaarsan in la tacbado dhulka Soomaalida 8 milyan oo hektar dhul beereed oo dhererkiisu gaarayo. iyadoo ay iska kooban tahay aqoontii iyo xirfadii beeraha dadkeena ayaa waxaa jiro intii yareed ee ku dhiiratay inay wax soo saaraan, inay tartan iyo sidoo kale loolan kala kulmaan dad shisheeye ama shirkado ajaanib oo la fiirsada markii dadkeenu ay wax soo saaraan oo dalaggoodii soo go'o inay sidoo kale dalag la mid ah oo lacayn ah ay keenaan, iyadoo ka dhigaya in ay tahay aid ama gargaar wax loo yaqaano dadkeena loo gargaarayo. waana niyad-jab toos ah si loo beeralayda ay u dhiiradaan siina wadaan wax soo saarkooda. laga joojiya niyad-jabinta dalagooda ka soo go'a beeraha aan sidoo kale la soo dejin dalag la mid ah, iyadoo la heli karo dalagga gudaha ka soo go'o oo aad uga fiican 100% kan dibadda laga keeno. sidoo kale waa in limitation ama xanibaad la saaraa waxyaabaha laga keenayo dibadda, taas oo iyaduna caqabad ku ah wax soo saarka dalkeena. ugu dambeyntii waxaan ka soo qaadaynaaba in bulshadii ay soo jeesatay oo ay dhankii wax soo saarka u soo jeesatay. sidaa darteed ha noqonin matabacda weynihii la sheegi jiray. hoosaan ku yiriyaa hana iga sheegin. waxaa la yiri nimaan shaqaysani shaax waa ka xaaraan. mahmaahooyinka dhanka iyo shaqada iyo maalgashiga iyo wax soo saarka iyo dhaqashada dhaqanka iyo xoolaha la xiriira way badan yihiin. sidoo kale nimaan dheedinimo dhergo ayaa ka mid ah. waxaan lagu dhiftoon lama dheefsado, ninkii seexdaa si isdibi dhalay. waxaasoo dhan waxay ka turjumaysaa mahmaahda Soomaaliyeed, wax soo saar iyo dadaal in la muujiyo. ugu dambeyntiin waa jiif walaalkiin oo idin leh salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. wax soo saarka beeraha waa barwaaqeen wax soo saarka beeraha waa barwaaqeen macdan baa ka buuxdee aynu hoos u barnee macdan baa ka buuxdee aynu hoos u baarnee
butaaciid barbarada u leexshiid webiyaa butaaciid barbarada u leexshiid iyo waanu haynaa badar aan ka dherignay iyo waynu haynaa badar aan ka dherignay Shoy